kadib imtixaan ay u fadhiisteen ku dhawaad 7,000 oo arday oo kala dhigatay iskuulada ku yaala 8 gobol ee Puntland ayaa si toos ah loogu dhawaaqay natiijada imtixaankaas oo ay qabatay dawladda Turkiga si ay uga xulato arday firfircoon oo ay u fidiso deeq waxbarasho oo jaamacadeed iyo waliba mid dugsi sare ahba. ku dhawaaqida natiijada oo ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada ayaa lagu soo bandhigay magacyada ardaydii ku guuleysatay inay Turkiga waxbarasho u aadaan iyadoo sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya uu saxaafadda u soo koobay natiijada kama dambaysta ah. secondary school ardayda galaysa ee foomada u tartamaysa Garowe waxa ku guuleystay 23 arday ayaa ku guuleysatay. Gaalkacyana waxa ku guuleystay 13 arday. markii la isu geeyo waa 36 arday. 36 kaas arday oo secondary-ga ah ee galaysa sanadkan secondary-ga foomada iyo form 2-yada insha Allah dawladda Turkiga way noogu deeqday inay qaadayso insha Allah berritay baxayaan. dhinaca jaamacadaha ardayda u tartamaysay Garowe imtixaankii maanta waxa ku guuleystay 42 arday ayaa ku guuleystay. imtixaankii Garowe ee xagga jaamacadaha lagu tartamay maanta waxa ku guuleystay 42 arday. 40 ardayna waxay ku guuleysteen imtixaankii aan ka qaadnay Gaalkacyo. isku geyn Puntland ardaydii imtixaanka u gashay waxa ku guuleystay 82 arday ayaa jaamacadu ah candidate. insha Allah waa ayaguna way baxayaan. wasiirka waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa dhankiisa uga mahadceliyay dawladda Turkiga sida ay heeganka ugu tahay soo celinta iyo tayeenta waxbarashadii luntay ee dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona sheegay inay taasi baal dahab u gali doonto dawladda Turkiga. halkan waxa laga sheegay 118 arday hadii wax ka qaldan hal iyo laba ka qaldan magacyada waxa la sheegay 118 arday oo deeq waxbarasho ah oo Turkiga inoo ku deeqday oo isugu jira jaamacad arday galaysa iyo arday galaysa dugsi sare 82 galaya jaamacad iyo 36 galaya dugsi sare waa deeq qaali ah waayo waa aqoon dalkeenana wuxuu u baahan yahay waa aqoon taa aad iyo aad baan uga mahadinaynaa. waxaan si gaar ah uga mahadinaynaa kaalinta dalka Turkiga ay ka qaadanayso amuuraha Soomaaliya ayaamahan. waxaan habeen hore dhageysanaynay khudbadii ra'iisul wasaaraha Turkiga Erdogan uu ka jeediyay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo hadalkiisii muddo 40 daqiiqo ah oo kaga hadlayay oo kaliya Soomaaliya iyo dhibaatadeeda oo adduunka ku canaanayay. aad baan ugu mahadinayaa shacabka reer Turki dawladdiisa iyo dadkiisa dhammaan. deeqdan waxbarasho ee loo fidiyay nasiibkoodana uu ku saaciday ku dhawaad 118 arday oo gabdho iyo wiilalba isugu jira ayaa imaanaysa iyadoo sidoo kale magaalada Gaalkacyo ay ku sugan yihiin dhaqaatiir Turkish ah kuwaas oo qaliin lacag la'aan ah ka fulinaya inta ay joogaan deegaanada Puntland. Ibrahim Muuse Dahraan Wadani TV-ga caalamiga Universal Garowe.